munaasabad ballaaran ayaa maanta ka dhacday hoolka macadka Al-Furqaan laantiisa magaalada Buuhoodle waxaana munaasabadan ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn iyo waliba sidoo kale madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatuma State of Soomaaliya. waxaa xafladan loo qabtay arday laba qaybood oo ka qalan jabiyay dugsiga sare iyo waliba dugsiga dhexe ee macadka Al-Furqaan ee magaalada Buuhoodle. ugu horeyn ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Professor Sheikh Cabdishaafi Axmed Cali wuxuuna ka warbixiyay ardaydan ka qalan jabisay iyo xafladan meeqaamkeedu sareeyay maanta loo sameeyay. xafladan ka dhacday macadkan Al-Furqaan macad Al-Furqaan lilculuum sharciya wal carabiya ee Buuhoodle halkaas oo ka qalan jabiyeen laba group oo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ah. dugsiga sarena waxa ka qalan jabiyay 29 arday dugsiga dhexana waxa ka qalin jabiyay 16 arday. ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu barakeeyo iyo in ay ka sii badiyaan oo ay sii dadaalaan. ardayda dhamaysatay dugsiga sare iyo waliba kan dhexe ee macadka Al-Furqaan ayaa dhankooda si weyn u muujiyay dareenkooda farxadeed waxayna u mahad celiyeen maamulka macadka sidoo kalena waxay hoosta ka xariiqeen inaysan maanta qalin jabin ee ay imika mid hor leh sii galayaan. hortaana waxaan nahay ardaydii maxadka soo dhiganaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan bacdigeena waxa ku mahadsan maamulka iyo macallimiintii waxna soo bartay ilaahay subhanahu wa ta'ala baan u weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro. maamulka midaan leeyahay waxaan leeyahay maamulka hawl culus baad soo qabateen waanaan idinka mahad celinaynaa. koo waxaan idin dardaarmaynaa maamulka macadka waxaan leenahay koo waa inay sabraan oo dul qaataan. laba waa in ardada ay soo saarayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ibtiqaa wajhi illaahi ay ku raadiyaan oo alla subhanahu wa ta'ala kaga dalbaan say haddaba ku sameeyeen midhaheedina ay arkeen. talabaad waxaan odhanayaa ardada aanu maxadka ka wada baxnay waxaa taqaaniin marka arday ay wax dhamayso waxaa taqaaniin in la yidhaahdo ardadaasi way qalin jabis. annagu horta qalinkii maanu jabin haddaanu sii toosinayna. يا معهد الفرقان يا منبر الإيمان وزهرة العرفان ونشوة الإخوان يا معهد الفرقان يا منبع القرآن والشرع والعلوم بالحفظ والإتقان نشرت يا فرقاني الخير والإيمان والفقه والأحكام وسائر الأعيان أصبحت دربا يا صفوة المرجان والنور للبلدان والريف والأديان لك الفضل يا غالي الفرقان ولك المثل يا قائد الزمان والشكر والتقدير والفخر والنشوان لكل مدرسين للعلم والإيمان والطلبة والحضور والإخوة والإخوان جميعكم جميعا جزيتكم بالإحسان وإلى هنا نكتفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. كبدتي كبحضي أما تيدا أوليهي لبادي كوني تطبادي مرك الفري إلى حد 2011 12 وحياوها يقبتين أرضي كبحضي يهمية الدجاج كسو كردي محانو ملينا يوقف كستومان الدجاج كشوجو الله السعودة هرمرك وجارين أما يدك جارسين والله السعودة ودريم كريا وهي وحي فران سكولو iyo waxbarashooyin sida malcaamadaha iyo madrasado kale oo lagu barto iyagana tacliinta asaasiga ah oo ay si mutadawacnimo ama voluntary oo bilaasha oo bilaaga ay uga qaadaan iskuulaad fara badan oo noocaas ah. iyagana waxaan leeyahay hawsha wanaagsan aad wadaan ha ka daalina bulshadiina horay u qaada. deegaanka Buuhoodlana dadweynaha ku nool waxaan leeyahay deegaan dadku wuxuu isku dhaafay aqoon ba caalamka lagu horumaray waxa lagu qaybsanayaa. اسم خريجي وخريجات المعهد الفرقان خاصة الدفعة الثالثة صاحبة هذه الحفلة أولا نشكر الإدارة ومدرسي ومدرسات المعهد الفرقان للعلوم الشرعية والعربية في بوهول فإن من نعم الله علينا أبناء منطقة البوهول أن أمكننا وفتح لنا أبواب علم الشرعي بدون كلفة وهي نعمة عظيمة وفرصة ذهبية
قليل من يدركها وأقل منهم من يستفيد منها. ومن نعم الله علينا على وجه الخصوص أن أكمل لنا دراسة هذا المعهد الفرقاني. waalidiinta dhalay ardaydan ayaa iyaguna madashaasi qiimaha badnayd hadalla ka jeediyay waxayna ku soo bandhigeen tayada macadkan iyo waliba sida ay ardaydu uga faa'iideysteen iyagoo joogay guryahoodii waxayna ka hadleen arrimo dhowr oo quseeyo waxbarashada iyo waliba macadka Al-Furqaan iyo sidoo kale dadaalka xoogan ee macallimiintu ay u galeen ardayda. xafladan gudaha ballaaran dadka ka soo qayb galay dhammaantood bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku salaaminaa salaanaad u qaalixiisa badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bada taxiya waxaan mahadinaynaa awalan horta waxaan doonayaa inaan xuso annagu haddaan hooyinay ama waalidka baanu nahay maxadkan himiladii aanu u qabnay iyo rajadii aanu u qabnay waxaa ku siyaaday wax badan alyacni markii aanu aragnay maxadkan wax soo saarkiisa iyo tayadiisa iyo maaragtay habsocodka iyo nidaamka uu leeyahay iyo sida caruurteedii ay uga faa'iideen muddo yar oo kooban iyagoo alxamdulilah iyo jooga gurigoodii oo aanan meel ugu qarash garobin meel aanan ugu dhibaatoonin waxaan maaragtay korodhay himiladii iyo rajadii aanu ka qabnay marka aanu aragnay sida maaragtay xamaasadda iyo qiirada leh ee tartanka iyo habsocodka leh ee maaragtay ay maaragtay maxadka casharkiisa u socdo iyo nidaamka uu leeyahay waxaa siyaaday jacaylkii iyo maxabadii aanu qabnay maxadkan awalan markii hore waxaanu maqlaynay oo dadna lagu sinala yidhi halkan maxad baa laga dhisay Furqaan la yiraahdo loo bixiyay Furqaan caruuraha la geysanayo laakiin wada dhal iyo wuxuu yeelan doono ma aanan ogeyn balse marka waxaanu fahanay maxadkan waxaanu maaragtay mar labaad iyo mar saddexaadba aanu mahadinaynaa culimada maamulka maxadka iyo macallimiinta waxaan u direynaa salaan labaad oo ay ku dheehan tahay idamka Ilaahay baa leh mahadnaq waxaan kale oo salaan u direynaa ay ku dheehan tahay jaayso ducaahi ardada ka dhigata maxadkan wax hore bogaadinaynaa ardayda hadda dhammaysatay marxaladii tacliimeed ay ku jireen iyadoo aan la qaba ardaygii soo jeediyey qalin jabin ma aha sida ka muuqata boodhka loo sameeyay ardayda oo qalin jabin ay ku caddahay waana sida ardaygu uu sheegay oo waa qalin qorasho cilmiga oo dhan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmigaa marka horeba wax yara laydinka siiyey buu yidhi haddaad basharka tihiin wixii yaraa ayaynu haddana wax yar ka sii qaadanaynaa marka waxaynu odhan karnaa waddadii ayay ardaydu hayaan waxbarashada welina weeye waa bogaadinaynaa marka marxaladaha ay soo dhammaysteen ee kala duwan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinaynaa kuwo noqda kuwii naftooda cilmiga iyo aqoonta ay barteen ku anfaca ummadooda iyo dalkoodana ku anfaca ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa qurbajoogta deegaanka ayaa dhankooda soo bandhigay sida magaalada Buuhoodle ay ugu horumarsanayd dhanka waxbarashada sanadihii hore isla markaana dib u dhac ku yimi intii uu jiray burburka Soomaaliya sidoo kalena imika ay cagta u saartay wadadii horumarka xaqiiqatan aanu taariikhda Buuhoodle ka waxay ahayd inay hayeen dad tacliin leh iskuulo qadiimi ay ku oli jireen dad badan oo wax soo bartayna ay Buuhoodle ka soo baxeen oo xaadhadan ay ka soo baxeen meelo la mid ah Hurufadhi iyo marka Buuhoodle waxay ahayd meel qadiima lagu yaqaanay in wax la soo maartay dad tacliin ay ka soo baxaan ee laguma aqoon dad mutakhalifiina oo jaahiliina oo waxba aqoonin laakiin fatra ayaa jirtay dabcan oo inqitaac galay oo ah intii fawdadii hadda Soomaaliya in maartay aan muassasaad tacliimiya aan loo sameyn iyo meelo wax laga barto aan dhalinyarada la tawjiihin laakiin biidilaahi tacaala maanta ayaad wadadii dib ugu soo dhacdeen aad hore uga leexateen ee hayn jirteen qadiiman ee ku taagnaada oo wada waxaanad ogaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri fi kitaabi hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina laa ya'lamuun mujtamacaan cilmi lahayn oo aan wax barani ma hore maraan xayaatada dhulkanan aynu ku sugannahay markaad Soomaaliya soo gashid ilaa ay aad ku soo dhawaatid dhulkan ku dhow dawladaha aynu jeeraanka la nahay meelba meesha ay ku sii xigto way ka sii jahli badan tahay wayna ka sii mukhadaraad badan tahay ganacsatada ayaa dhankooda si weyn u soo dhaweeyay horumarka macadka iyo waliba sida ay ku dulqaateen macallimiinta iyo maamulayaasha dugsigaasi inay waxbarashada wadaan iyadoo ay xabaduhu iyo madaafiicdu ka dhacayaan qaybo ka mid ah gobolka Cayn maamulka macadka dadaalka ay bixiyeen iyo juhdiga
duruufaha adag ay la soo maaragtay ku soo sameeyeen ku soo dhigeen macadka waxaan xusuustaa xilliyadii imtixaanaadkii hore ee teramku socdeen in ardada qaarkood dib loo dhigay dagaalada awgood madfaxoo soconaya in imtixaanku dhex socday magaaladoo laga qaxay in qaarkood la dalbayey xaaladdaa adag baan uga mahad celinayaa ardayda iyo maamulka iyo dhammaan macallimiinta iyo inta ka qayb qaadatayba caaqil cabdisamed cali xasan oo ku hadlayay afka cuqaasha gobolka Cayn ayaa dhankiisa munaasabadan ka hadlay wuxuuna si weyn ugu mahad celiyay midho dhalka ka soo baxay macadka Al-Furqaan iyo waliba horumarka muuqda ee dhanka waxbarashada ah sidoo kalena waxa uu kelmad u jeediyay ardayda qalin jabiyay wuxuuna sheegay in looga fadhiyo inay dadka baraan cilmigii ay barteen marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa maamulka iyo macallimiinta معهد الفرقان ayaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad iska leh waxaan ugu mahadnaqaynaa midhaha ka soo baxay juhdigooda oo muuqda oo ah midho lagu farxo ayaan ugu mahadnaqaynaa runtiina ditoorku intuu inoo yimi waxbarashadeena waxaa ka muuqatay isbeddel badan waxaan u malaynayaa berigii hore waxbarashadeenu looxjiid bay isaga badnaan jirtay iminka waxaad moodaa inay u badan tahay waxbarasho nidaamiya oo idaari ah ardada baxdayna kelmad baan odhanayaa ardada waxbarashadu horta xaggee bay ka bilaabataa maanta markaa waxbarateen xil baa idin fuulay xilkaas waxa weeye inay idinka dadka wax bartaan ducaad noqotaan diinta Ilaahay fidisaan waxay ka bilaabataa guriga haddaynu guriga khamiis kala soo baxno ardada iskuulada wax ku barno gurigeennina aanay diintu ka muuqan maxay soo baxaysaa awalan marka ugu horeysa waa in guriyaha laga bilaabaa inay diintu ka muuqato hooyo ka muuqato ilmaha ka muuqato si walba gurigeena diintu ma muuqato agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada maamulka Khaatumo State of Soomaaliya ayaa isaguna halkaasi ka hadlay wuxuuna mahad celin ballaadhin u jeediyay maamulka macadka Al-Furqaan wuxuuna sheegay in maamulka ay ka go'an tahay la shaqaynta dhammaan dugsiyada waxbarasho ee deegaanada Khaatumo State of Soomaaliya safka horena ay kaga jiraan dugsiyada lagu barto shariicada Islaamka halkan sharaf weyn waxay ah inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan aad iyo aadka dadkii inta soo timi ee soo xaadirtay iyo inta maqan iyo inta maqli doonta ama daawan doonta waa ku raali gelin doonta ee ku saabsan helitaanka jaamacadan iyo iskuulkan madrasadan macadkan iyo madrasadan thanawiga iyo kan icdaadiga isku wada jira alxamdulilah rabbil caalamiin annaku waxaanu nahay maamulkaas la sheegay ee Khaatumo halkan waxaan ag fadhiyaa madaxweynihii Maxamed Yuusuf Jaamac Hala oo aad u taqaaniin halkan midigtana waxaa iga fadhiya gudoomiyihii gobolka aad iyo aad baan anoo afkooda ku hadlaya iyo inta maqanba aan bogaadin iyo hambalyo ugu soo jeedinaya ardada iyo idaaradda macallimiinta iyo qof kasta oo gacan ka geystay waxbarashadan qaayaha leh ee qiimaha leh ee maanta aynu halkan ka daawanayno ama aynu ka arkayno maxay tahay boohooda ka dhacaysa in yar haddaan xoogay dib ugu noqdo taariikhda boohoodle oo dadku moodayaan badanaaba inaan xagga iyo nugaal ka yimi oo aan waxba garanayn waxaan u malaynayaa kalaaska markii boohoodle waxaan xusuustaa kalaaska ugu sarreeyey ee boohoodle ee waxbarasho ka furani inuu ahaa malcaamadii aan guuliyey oo aan anigu ka qayb galay oo aan arday ka ahaa markaa umaleymaa intiina inta badan midha garamayso maantana jaamacad baynu dhex fadhinaa boohoodla waa ilaahay xamdigii
wasaaradda waxbarashada ama maamulka khaatimo waa maamul cusub waxaan la wareegnay wasaaradda waxbarashadaasi ma aha dadka qaar ba waxa u yaqaaniin marka la yiraahdo dugsi waxbarasho sare baa halkaas yaala ama ku yaala baan leeyahay waxay u arkaan hadda jeer waxbarashada wax diinta ka fog wax shariicada ka fog mana dhici karto waxbarasho asaaskeedu waa shariico waxaana lagu dhamaanayaa iyada unbaa da'an ah oo ugu dambaysa madaxweyne maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo ka mid ah golaha madaxtooyada dowlad goboleedka khaatumo state of Soomaaliya ayaa isagu soo afmeeray xafladaasi wuxuuna ka jeediyay khudbad taabanaysa ahmiyadda waxbarashadu leedahay ilaahay ba mahad leh horta suuqan keenayo maxay ahayd inuu soo tigeliyo munaasabada farxadda leeyahay inaynu walaalaheena waxbarashada hadii bidkii culumta diiniga iyo tan kaleba hadii bidkii ku bartay inaynu kala qayb qaadano isaga iyo mahad inta ka dambeysaba kuwii intii uu soo maxay ahayd dadaashay hadii waalidka tahay hadii macallimiinta tahay hadii bidkii leeyahay bogaanta iyo amaanta loo soo jeediyay kuwii hore kala mid ah inta ka bacdi waa min gaaban hadal gaaban buu leeyahay wax badan oo far badan oo aynu soo oranayna ma jirtay waxa weeye ardada mid baa kula dardaarmayaa oo halka tiraadeen baad oo inta soo digana si dhawaataan halka aad leedihiin qalinkii hadan uu qoraayo si fiiqna weeyaan hadii midkeeda leeyahay taa wadin ku bogaadinaya hawsha hadda idin bilaabatay ina imka idinku indhaha ku kala fidisaan baad hadii midkeeda leeyahay barateen intii aad gudbin lahaydeen jiilalka idinka yaryar aad u gudbin lahaydeen weydin harsanta dadaalka halka ka sii wada ilaahay inta dambe faraha badan hadii midkeeda leeyahay luusan dariiqa xul haysan hadii midkeeda leeyahay ay idinku mitaal u noqotaan oo idinku aad xaqaadana waxa laga yaabaa idinka isku jiidahe oo idin soo joogsanayaan idinku inta suuqyada dhex martaan hadii midkeeda leeyahay samaysataan qaabkii aad u wacyi gelin lahaydeen intii dadka waaweyn oo kuwa yaryar imka dadka waaweyn ma ixtiraamaan inaad idinku aad samaysaan barnaamijyo aad kuwa idin laaleeg aad ku soo dhaweyn lahaydeen aad dibka leeyahay ku wacyi gelin lahaydeen hadii rag yihiin hadii dumar yihiinba munaasabadan hadii dibka leeyahay waxay munaasabad farxad leh oo runtii hadii dibka leeyahay dadka wada fadhiyaaba inay farxad leeyihiin hadii dibka leeyahay wajigooda farxad ka muuqato ubadkoodii guusha ay gaareen كل ما مولود يسياسيين تهديب كلي أريج سياسي هو يسقى بحثنا عن هاتن كأولان ما يوحنا أولان ها ونهديب كلي عدي وجهه يركض صمت هايو وجه في حل هاي كم وقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyay shahaadooyinka ardayda iyagoo dhamaystay dugsiga sare iyo waliba kan dhexe waxaana ardayda oo mid loogu yeeray guddoonsiiyay shahaadooyinkooda madaxweyne maxamed yuusuf jaamac indhasheel isla markaana waxaa ardayda wajiyadooda laga dheehanayay dareenka farxadeed ee maanta ku dheehan iyo waliba sidoo kale habka ay uga go'an tahay inay halkaasi ka sii wadaan wadada waxbarashada ee imika cagta saareen axmed cabdiqaadir jabaan axmed darwiish TV buuhoodle